سؤالها وطن كونا وكدس كونا وسبب لقى فنانين تأيد لو ذاكتها قبلها الصومالي ذا قارنا ودلسو هيستي قارنا وارجينا سأنا دلهيستو أو لنك فنانين تمركان كهذلنا إن عدين لو يراد يوسفو قبلها فنانين تأه عدد كودا معان إيه أدقي ستم وقالدو ذو قروح بدن إن كستو صومالي ذا أنا الآن هادتك أفريقيا مركل القيمة قبلها أقو قرحون إن قبر فنانة ذا قورسو مركل لو يراد قورسو قور أي مرسا عاوشة كده قور ستوك وشيء كور السؤال إلا بن مركا إن قبر قورسو أو فنانة تبى قورسو لهاد وهذا لا قاعدة ما قوركي وين هذا horta mataqaanaa mar haddaan ku dhex jira anigu maxay ahayday fankii inaan fanaanad guursado dee hamigeyga ma ahayn laakiin haddaad adigu tirid fanaaniinta haysta fanaanadeed guursan lahayd wada warwareegaysaa laakiin caawa lagu haya fanaanad haysta fanaanadaan guursan lahaa dee farxiyo kaba yare boqoradii codka soo qabat ya boqoradii codka iyo quruxda isku darsato farxiyo kaba yare ayaan guursan lahaa maxaad ku dooratay marka kolley waxaan firfircooni gabdhaha iyadoo ugu firfircoon moogta ya marka haddii ku dilaysaa wayna ku noolaynaysaa marka waxaa leedahay wixii noola ku noolee farxiyo kaba yaro maan imika odhan lahaa maasha allah farxiyo kaba yar waa u qalantaa daawadayaashana halkaas nagala socdaan Yusuf inuu marka la yiraahdo guur ay timaado waa lacala wax taagan annaga hadda ma hayno Soomaa Yusuf ya oo fanaanada baad marka farxiyo in markaas Yusuf isku daayay noqonaysa waa mustaqbalka lacala nacam waa jeclaan lahayd baad ugu tiri ayaad jeclaan lahayd farxiyo kaba yare baan ku maxamed guursatid fanaanad markaad waan gartay intaas aan ugu soo laabanayna su'aashaas jawaabteeda si wanaagsan ayadoo bixisay fanka intee rabtaa inaad ka gaarto adiga wallaahi fanka intaa dhalinyarada ah inaad ku koobnaato oo hadhowta masaajidkaad ku xaroonaysaa hadhowta wala cibaadada iska badanta inuu cibaadaysan bishaara waxaad naga dhigtay dadaan cibaadaysama markay heesayaan malaa adiga waxaa tiraa dhowtiyaan deynaa moogta ya nacmintiiga ka kooban yahay waa inta aan dee dhalinyarada hadhow ubad baa ku sugayo awlaad baa ku sugayso inaad dee wax dhaqaalaysid in muddaa magaalada muqdisho ayaad joogtay dad badan oo ka mid ah dadka faniskaaga ah waxay leeyihiin Yusuf magaaladii ayuu joogaa muqdisho ka horna waxaad ka timid Somaliland magaaladii Hargeysa maxamar ayaad sii joogaysaa ma qorshe kale ayaa halkan u joogtaa ma gabar ayaad xamar ku guursato adigan qurux badnaaday maxaad u sheegi lahayd bishaaro dadweynaha waxaan u sheegi lahaa horta maxay ahayday quruxda xamar iyo Hargeysa kuma xidhin kulli anigoo cad baan imiday anigoo cad baan imikana joogaa wadanka bishaaro wallaahi dee kulli meesha ka guursan la ilaahay baa garanay wali samaan guursanin laakiin xamar waxaan u joogaa dee wali amarkii ilaahay baana ka dhamaanin marka anna magaalada saas baan ku joogaa waanan jeclahay wadankayga iyo dalkayga iyo dadkayga meel walba Soomaali joogto ya in aan tago wax difference yana dama dhaxayaan marka happy baan ahay